السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan waraysi kaga qaadaynaa Ciidiid Jaamac Xirsi oo ka mid ah milatarigii dawladda Soomaaliya isla markaana ka qayb qaatay dagaalkii 77 44 sanadood ka hor ayaanu ka waraysanaynaa dhacdadii ka dhacday Garab Case oo lagu laayay dhowr iyo 80 nin oo ay dadku siyaabo kala duwan uga waramaan. Ciidiid waxa uu degan yahay magaalada Burco waxaanu kula kulannay magaalada Hargeysa. Ciidiid wuxuu ka mid ahaa liiska loo qorsheeyay in la dilo iyadoo dadka qaar yiraahdaan abaalmarin baa la doonayay in la siiyo raggii halyeeyada ahaa ee faranta hore dagaalka doorka muhiimka ka qaatay. haddaba sidii uu Ciidiid uga badbaaday liiska lagu daray ee lagu khaarijiyay saaxiibadii iyo rag badan oo kale oo uu qaarkood garanayo ama intooda badan uu aqoon u lahaa. Ciidiid Jaamac Xirsi marka hore waan ku salaameynaa waxaan kaaga mahadcelinaynaa waraysigan aad naga aqbashay waliba adigoo safar ku jira oo ku jooga magaalada Hargeysa. bal markaa waxaad nooga warantaa dhacdadaasu sidii ay u dhacday iyo sida aad uga badbaaday adigu wixii aad ka xusuusan tahay 44 sano ayaa hadda laga joogaa waa waqti fog runtii oo ku dhow nus qarni. bal ka waran dhacdada waxaan magacaygu Ciidiid Jaamac Xirsi baa la yiraahdaa. waxaan ka tirsanaa gaaska koowaad baan ahaa gaaska koowaad gootada 16aad baan ahaa halkaa in wax iska kay dhaafseen waa basuure waxaan ahaa ururka 174aad ayaan ahaa. waxaan ahaa hurinta la hurin koobaad waxaan ahaa hurintaas hurin guutada ka magac dheer bay ahayd. wixii aagaa joogay ama warkaa hayay ama ciidanka ahaa way garanayaan hurin koobaad baa la oran jiray. hurin koobaad baa la oran jiray xulka ahaa ninka qayilaya ee markaan xabad ku socon waxa loo jeedaa hadaan hurin koobaad ahay naga aamus. nacam naga dhageysan jiray hurin koobaad miyaa tahay iska aamus. hurintaasaan ahaa laba goorna Cali Samatar waa gaadhay in nala qabsaday oo la yiraahdo hurintaas waa ku deysay. laba goor intaan hubo Cali Samatar waa gaadhay in la waa la qabsaday hurintaas waa ku deysay. sababtuna maxay ahayd dee waxa nagu buskaday ciidamo gurmada oo laxaad badan baa nagu buskaday. marka hurintiinu miyay safka ugu horeeyay ku jirtay safka ugu horeeyay ku jirtay ilaa halkii gaadhay waxay gaadhay dir dhaba laba jeer baan u galay ayaan u galay dir gudihiis waxaanu ka bixi jiray meesha Kadarcad wadada Kadarcad la yiraahdo ayaanu kaga bixi jiray dir dhaba. marka iyagu way had yeeshee way isu gurman jireen gurmad cid iyo dhul ay sameyn jireen. xaggan gurmadkeedu dhaliil buu lahaa bal wax sababay mooji waayahay taasaan ka mid ahaa marka hore ugu horintaasaan ka mid ahaa ka soo waad ciidankii sidii u joogay dagaalka ugu jiray jiida ugu jiray baa waa laga baxayaa Itoobiya waa laga baxayaa. waxay noqotay waxaan la filayn amarka ayay siinayeen markaa tee madaxda bay ka timi madaxdana amarka loo soo dhiibay. ninkii ugu sareeyay aaga haystay kuma aha markaa tee kulli aagan galbeedka waxa haystay ninka la Ciro harawu joogay isaga beeskiisu tee mar haddii amarka sida lagu bixiyay waa laga soo baxay markaa wax la soo socdaba anagu markaa waxaan ku jirnaa adoo noloo ku raray kumbilshi ayaa noloo ka raray jiidatan oo xoojin baa halkaa noloo geeyay kumbilshi iyo xagga adari hurinteedii hurin koobaad wey waxaana la geeyay kumbilshi an walle fandhaale haddii ilaa laga shilay kumbilshi intaasaanu markaan dagaal ku kulannay wixii joogay naga soo horjeeday halkaa waxay martaba sidaa ahaataba ka soo baxa bay gabagaba ku noqotay ugu dambeyntii ka soo baxa maxaa dhacay markaa sidee soo u dhacay
sida wuxuu dhaceen ciidanku siduu u soo baxay bal tafaasiil naga tafaasiil ciidanka dee amar qabl u ahaa mise isagoo maya horta marka hore amar baa ku dhacay ciidanka amar guud ayaa loo dhiibay sidaasaa jirtay oo ciidanku waa baxayaa baa ku dhacday ciidanka markaa urur qiimaysan kuma bixin si habaqala ah oo lugah oo saric ah oo haddii ciidan jaba waagay moraal jaba dismoraal ayuu soo baxay iyagoo diidanaa ka bixitaanka dee la yaabay ma la yaabay keentay lagu dhimay oo lagu dhaawacay maxaa keenay haddana iyadoo caynkaasa dhulkiina la qabtay inna lagu sii socdo ka baxa xagee ka timi baa markaa mashaakilka ka baxadii baa yaab nin kasta maskaxdiisa gaar ugu dhacday waayahay way ka soo socotadoo jiidaha aanu sheegayo ee diridhabe adaari inta la hindaaya ama ka soo dambaysa ciidankii ku jira soomaaliya wuxuu ku soo shubmay meesha la jigjiga ayuu kusoo shubmay maxaa dhacay marka jigjiga waxaa dhacday ciidanku isaga oo iska dee aan dhismihii ciidan ka duwan oo sidii u soo galay burburkii habaqalaha magaalada ku soo galay aanu kolley anagu laba habeen aanu hoynay jigjiga ciidanka iyo magaaladuna kala fac weynaadeen ciidanka farihiisu magaalada yar bay ahayd magaalo yar ma waa ciidanka ciidan bay saa ula ciirciirtay ula dildilaantay yaa subaxaa ka mid ah goor aan ku cabiri karo 8 iyo miridho ama ilaa 8 yaa siiri dheer laga afuufay meesha dhexdeedii jigjiga ciidanku joogaya hal xeray markaa intaas oo dhan joogay dee waxa weeye waa magaaladii aagii bay qabsadeen in alla intii dawladdu lahayd ama guri ahayd baa ciidanku iska galay ayuu iska galo ku jiraa seexdaa siiri baa la afuufay waxaa la siiriga waxa afuufaya ninkii leeyahay ciro weeye kornel ciro wuxuu yidhi si marka horeba ciidanku ninkii ciidan uu dareemi karo oo sidan aanay anfacayn magaalada loo soo galay ama loogu jiro waayo bahashii ciidankii naga horjeedana waa nagu dhow yahay dee nagama foga oo naga daba yimi waana daba socdaa waxay noqotay ciidanku ha ka baxo magaalada ha ka baxo garab casaya ciidanku ha baxo amarkaa la qaato siirigu dabada ma maqashay xoolaha dabada soo ururiya iyay kala hadhin dabadu ka soo ururiyo siiriga iyo haddii ba gaadhigiisa dabadu ka soo ururiyo garab casay iyo ku shubay markaa waayahay ciidankanu markaa waa infantry majority waa infantry technicadu halkaa ma joogto halkaa technicadu wax meel gaara u jooga ilaa waa ciidamo badan oo isku soo fuqay laakiin wax meel gaara degan allahu caalim wa rasuul laakiin anigu intaan ka warbixinaya halkan technica ma taalo infantry baa ku soo shubmay meesha oo markaa majority maraya meeshan kan dildilaamay faraha badan waa infantry garab casaya la tegey markaana amar uu bixiyo wuxuu ninka soo horjooga ahawba ciidankaagii fayl iyo surtaag ninkan hawshu wato iyo dhacdo soo dhacday iyo ciidanka kuwan oo amraya war iskama hayaan warba iskama hayaan sidii baa nin waliba istaagayo fayli ciidankii uu fayli markaana amar uu ku bixiyo wuxuu hal xereeyo qoryaha dabka hal xereeyo amar bixiyo marka halkaa la istubay siiriga uu yiri hadii beedankeedii leeyahay fayliya amarka labaad uu bixiyo wuxuu ahaa qoryaha xereeya halkaa waxaa nin kastoo caqli ama looga warramay wuxuu garan karaa askari qorigiisa sita oo dismoraal oo moraalkuna ka xun yahay inaan la dili kareen haddii aan dabka laga xereyn dabkii waxay noqotay xereyn ayuu noqday anigu oo iminkaan joogo iyo waxay soo maray iyo waayaheeda mid walba aan tixgelinayo intaa in la ego aan ku dari maayo waanay ila gudboonaynba ilama gudboon aniga sidaa markuu u dhigay yaan anigu hadalkaasu aad iyo aad ii muday oo ii taabtay si gaaraan u dareemay waxaan la hadlay
waan ka dhaqaaqay halkiioo faylkii safkii waa ka baxado ilaa sidan buu dambaysiiyey dabka xereeyuu dambaysiiyey haadoo faylkii ma garanaysa lagu fayshanaa wuxuu ka dambaysiiyey dabka ha la xereeyo waxaan u tegey niman aan gargaranayo aanu dee faranta jiida wada joognado aniga oo hadalka dhegta u saaraya ninka aan u dhiibayo yaan ku war ma filaysi hadal kale uma faadfaadhin ma filaysi baan kaga baxay nin waliba wuxuu yidhi madax ma filay dabka xereeya ma filaysi nin waliba wuxuu maya buu yidhi haddana waxaan arkay dabkii oo sida xaabada xitaa si fiican loo dhigi maayo sida xaabada sidaa loo dhigayo qabababa wax la iska dul ridayo oo lagu xereeyey meeshii loo furay oo lagu faraxsanaaba in dabka la xereeyo hayo raggan lacagta waxaana lagu keeni jiray jiida bisha labadeeda saddexdeedna lama gaari jirinay markaa lacagtuna qaynbaar bay culays baa baynu ugu cid ma siino meel ma dhiganayno oo meel ammaani ma jirto cidna ma siinayno waxna kuma cunayno markaa culays baa bay nagu dishay oo jeebabka shaarka shanshaanaha iyo tobanka iyo genigenidaanu kala sooconaado aanu jeebabka u kala gelina nin waliba wuxuu dareemay markaad qorigan iska dhigto magaaladii u qayilaa tag adigoo xorah oo aan qoriba sideenoo dee caadi ah ayuu ku fikiray anigu markay sidaa u dhacday qoryihiina sidaa loo dhigay ayaa waxay ku dhacday horta kaa aad hayso xareen horta kaa aad hayso aduu gacanta ku hayso waxaan sameeyey koor dheer oo berigi hore ciidamada la siin jiray oo aan roobkana u soo dayn jirin oo dheeraado caqawgaa joogay ayaan gashanahay galbeedkuna waa qabow waa dhaxan badan yahay may roobkuna nagamaba qaado dabeedna koorkii baan halkan kala wareegado halkeer baan kala wareegay meel baan gidaar dabadiiho qorigii baan badhamadii baan furado qorigii baan garabka geliyo waa foororiyado dabeedna badhamada aanu xidhay aniga oo gacmaha waxba ku siidan ayaa soo noqdo soo galay markii qoryaha la tiriyay safka lagu soo noqonay nin ordaya iyima wuxuu yidhi xaggaad qabatay goorahaba waxaa leeyahay ma caydimiye oo maxaa laga rabay waa rag baa la qorayaa adoo daraja haddii beedinka rag baa la qoraya saraakiilho dabeedna waxaa la caydid haba ugu horreeya meye goorahaba adaan ku egeegin waxaan ka gaadhay markaa waxaa laygu qoraa qalinka wuxuu ugu dhacay ninkii saddex baa iga horreeyey ninkii afraad baan ahaa lambar afar baan ka gaadhay foor caydid jaamac xersi waa yahay anigu magaaladiina kuma noqon raggii markaasu xooggiisii magaaladii markii qoraalkiina dhacay faylkiina dhacay ragga xooggiisu marka waa sidii doonayey magaaladii gale anigu magaaladana kuma noqon magaaladaana dub wala igatayna dub oo dee halkaa raashin sila cal iskaga kariya oo saliid iyo bariisa halkan magaalada lagu noqonayo waa jigjiga oo garab casaysi ma jiraan waa meelkiisa ka mid ah kuma noqon magaaladii wuxuun baa aniga khaafuun baa igu xabay khaaf bay u dhacay war sidan oo siday tahay tolo waxaad u qaadan laadahay ciidankii oo weli faran jooga oo la daba socdo dabka xereeya kaasa aniga meel goysaba iga daadegi wey saa igu isuga liiqday sidaana kayga u xereynay saasay habeenkii markaan seexanayo dhinacan uu ku jiro waa ka saari jiray dhabarka anigoo koorkayga gashan ilaa kootarab wallayga tahay kootarabaan baa igu jire xaggaan u saaraa dee qoriga ayaan la arkin dadkan waa ka qorya xereeya dadkan waa uley waa yahay subaxa gebagabada ahayd ee dilku dhici doono marka waa subax labaadkii waa subax labaad subax saddexaadkii ayaa waxaa dhacday yumaan isiri war reerkan idiin dhowa geela haysta reer muuqaalkiisuba noo arka aanu arkayno oo geel haysta yaani si caano geel u doono
in yar markaan aan ka socday xeradii yaa siidhi dheeri dhacay siidhiga dheer waan garanayaado siidhiga waa fahmado waa fayl siidhiga la macnihiisa dhuuxaysaa sidna waa siidhi iska yaroo filmi midna waa siidhi dheeroo dhaa isu kaale waan tashadado war fayl weeyaani ma noqotaa iyo adigoo gurigii jooga ma gaadhin ma gaadhin tashigu wuxuu igu dhacayaa meel inta dhexda ma noqotaa iyo maye hariisaga maro reerka gaadh baa iiga dhacday reerka gaadh bay iiga dhacday waa yahay reerkii baan u tegey shariga waa dhacay reerkii baan u tegey waar maxaa caaniga iibshoo geel bay haystaanoo reerkii baan cabaar la joogay waxaa dhacday nimankii markii la faydiyey la yidhi ma dhan yihiin waxaa la yidhi markaa fayligu dhacay waxaa la yidhi nimankii halkan dhexe ku fayliya iyaga dhexdiisa meel dhexe halkana iyaga gaara ku fayliya waa nimankii xulka ahaa wey aan ku jiray wey liiska aan ku jiray subaxan waana ka tegey liiskaansi ku jiraa ma dhan yihiin baa loogu jawaabo ma dhan yihiin waxaa la yidhi waxa maqan 3 iyo 4 qaarna sigaar bay u doontay magaaladii maye aydiidna isagoo xagga magaalada ma qabane halkuu kaatay meel boholaaba ku dhow halkuu sii baxay wuxuu soo qabtay ninkii hawsha watay qaar aan qorayn ayuu midhka ka buuxiyay halkan taagan waa ciro ayuu ku booriyey isaga gacantiisa ku soo qabtay isaga gacantiisa ku soo qabtay saddex ku buuxiyey kabacdi markaa wuxuu yidhi marka hore dabkii ma ka xiriyey dab la'aan ma yihi marka labaad nimanku rag tirsigaasi haddii aan la tixin oo aan xidhxidhnayn waa la xidhxidhay miyaa markaa waa la xidha waxaa la yidhi waxaanu iska dhigaynaa etoobiyaankii aynu qabqabaynayna maxaabiista ahaa iyo soomaalida qabqabanaysay oo iyagu waxay iska dhigayaan soomaalidii ninkanu intuu wato wuxuu ka dhigayaa soomaalidii filim baa la matelay waaba sheegayba filim banu isagaas markii horena waxay derajaa la siinaya sheekadii durba isbedeshay waa la isku taxay unugtu waa 9 nin unugba waa la isku taxay xeradiibu iyagoo gacmahay dee gacanta isugu xidhan yihiin gacanta ayaa isugu xidhan yihiin dabeedna iyaga oo katiinad baa markaa lagu xidhay mise xarig war xariga katiinada la heli maaye waa la saaray lug baa lagaga saaray xeradii ciidankan iska kala tagaa leeyahay ciidanku dee xeradiisa iyo wixii ninba meeshuu qabanayo isagay u taallaa intana baa looga jeeday waayahay kasoo waadada markii uu qiyaasta halkan diyaaraddu saaran tahay iyo halkan aynu joogno marka intaa isu yihiin intaa laga waday xeradii gawaadhidii ninkanu watayna cira watayna ay gelbinayaan hareeraha ka socdaan oo dabada ka socdaan tiknikadiis ayuu markuu ilaa intaa ciidanka ka saayey yuu ku dalbaday waxay markaa rasaasi ii baxday gurigii anigoo jooga aan caanaa u doontay yaa waxaa ii baxday rasaas aan iska hor jeedin oo isqaabilahayn ase hoos u wada foorarto oo afsaar ah oo baroomo iyo beebeeya ilaa rasaasta laftigeeda ayaa la kala garanayaa absaara horta markaasaan anigu gurigii ka imi gurigii iyo reerkii markaasaan ka imi waxaa ku soo dhacay wixii meesha laga qodayey kusoo jiray waa dhacday nimankii baa la laayay laakiin meesha in wax dhaceen baa iyagu dhacday waayo nimankan xadhiggan iyo xidhxidhkan iyo waxaan uga dambeeyey xidhxidhka kan dheerajaa iga dambeysay waayahay nimankuna haddii ay qorigooda sitaan ma dilmeen
qoryaha laga xiriyo laga soo abaariyo marka hore ugu horeynta ninkii wax kale ku sheegay ciidanka oo dhan dee baa laga ciidankan meesha soo galay totally nin qori siistaa kuma jirin saddexdii gaadhka ahaa mooye iyo kababoostihii mooyaane qori kale oo debed ku hadhay ma jirin stoorkiina waa laga stoorka waa la xidhay oo la xidhay oo la qufulay markiiba quful loo soo qaaday oo lagu jebiyey waad soo noqotay meeshii baad waan soo noqday meeshii oo shaydaan dhiga ku dubtay weji kale leh oo dhiilaysa nimankiina waa meydkoodu waa rasaysan yahay halkii lagu dilay yaalin isagiina gaadiidkiisa iyo wixiisiina markiibuu dhaqaajiyey way cararay dee miyuu dhex joogi karaa markaa ma dhex joogi karo ciidanka maxay sameeyeen marka ciidanka waxay sameeyeen waxaa ku dhacday kii hore iyagoo qaba moraal xumadii hore iyagoo qaba iyaa tanuna u raacday tanuna u raacday waxay noqotay in ninku qorigiisa intuu qori meeshii stoorkii qori ka haleelo kala soo baxo waa la jibiyey stoorkii markiiba gudaha la isugu celiyey markii waxaan dhacay nimankii in la dilayo la laynayo nimankii rasaasuna ku socoto yaa stoorkii gudaha la isugu celiyey la isjeegay gebigiisa daakhalka la isugu celiyey qoryihiiba halkaa laga soo baxay isagii boqol iyo maaragtay tagay uu baneeyay golahan uu baneeyay waxay hadaba noqday raasamaalkii muxuu noqday in nin aamin waa waliba ninkii la oran jiray madaxda ahaa ilaa falkan nin madaxa geysay oo sidan u dhigay nin waliba inuu siyaado wargadood baa in cid amar iyo sidan wax dhahiyo hebel xagga u baydh amar bixiyo nin waliba hoos buu iska dhukus way iska dhukus kii manjo ahaana nin waliba qorigiisa buu tiri ka haystaado wuxuu eegayaa laftigiisu waxaad moodaa inuu eegayo waxa yidhaahdaa miyaadan xagga u baydh miyaadan hebel hayn oo maamul dee samaynayo ayuu eegayaa oo dee waa kan la aaday maamulkii waa kasee noqday horta halkaa iyo warkeedu anigu xana idin awaali maayo markaa kadib maxaad samaysay adigu waxa la sameeyey ciidankii dareer buu isaga soo dhaqaaqay oo meeshan leedo maayi garab caseeye fadhiuma yaale maya hargeysa wejiga la soo saaray waa la soo dhaqaajiyey ilaa bahasha la wadaado goraya cawl gabiley dhaboolaq tagon dhaboolaq la yidhaahdo intaasee wejiga la soo saaray niba meeluu kala kulmayba habaqala ah markaa raashin waxa la dhigay oo anaku aanu nimi kolley aan ka mid ahaa aanu nimi dhaboolaq ayaa waxa la dhigay biyo iyo raashin raggii waa la ogaaday raggii in waxaas ku dhaceen in raggaasu jabay oo laalufkaa uu yahay oo bilaam haddii moraal yahay oo aan madax iyo waxba hoggaan jirin waxaasu lumeenna waa og yihiin markaa tale waxay isugu daayeen horta dhulkaa biyo iyo raashin ha loo dhigo anigu dhaboolaqaan ayaan imi garyo golka fooror ah halkaasaan ciidankii ciidan laxaad aan ku nimi raashinkaa markii aanu cunay mi kala garanay warsadeen awal maxayna helay yaa la soo duudiyey taa iyo wareysigeedu haddaa weriga mooda markiiba ninka kanu ujeedada marka sidaa loo qiyaasay cabdilaahi yuusuf bay wax ku wada socdeen inqilaab bay ku socdeen waxaanay islahaayeen oo waxaan sababayey nin maqalay nin joogay daayo nin maqalay marka la yidhahda sidaasay ciidankii u dhigeen nin waliba inuu qorigiisa la dhaqaaqo jaadii uu ka yimi uu kaco reerkoodii si ciidanku u jabo oo ninka awa fursad u helaan ujeedada ay ka saameen taasay dhaboolq markaa timi xaggeed ugu soo gudbay dhaboolq waxaanu nimi bahashan la yidhaahdo gabiley baan waa wada socotaa wali intii kolle ciidanku habaqalaha badan kaa dambeeyey marba qaar soo dhacayaan gabiley baanu nimi gabiley markaanu habeena joognay ayaan anigu habeenkaa aan dhuurigaba lay xil saaray ilaa haddii ciidan hadduu meel yimaado dee cid baa loo xil saaraa dabadeedna
ayaa gawaadhi isku soo gurtay aan iman jirin marka hore joogin gawaadhi bay isku soo gurtay waxay ka timi gawaadhidu dee waxa ka timi Soomaaliya xaggaas laga soo waa gawaadhi ciidan waxa soo warkii wuxuu noqday inta ciidamada hal kala guro oo qolo waliba jiida ay markii hore ka baxday ee ka dagaal gashay aligu celiyo hal kala raro hal kala raro jornaati baan habeenka ka gabilay lafteed gawaadhidiiba in baqayba meel lagu jaayo la dhigay markay 7-6 iyo barkii ahaydna waa lagu dhawaaqay qolo kasta halkii ay hadii biidinka gaaska saameyshu markii hore ka soo dagaalkay iyo u baxaya tagaya markaana anaku waxaanu tagnay gawaadhidii waxay noo qaaday meesha leedahay habaas ilaa madaxdadley ilaa hadii jiri waa gaas koobaad waa qaybta gaas koobaad habaas waxa laga tagaa xariirad oo Djibouti bay xigtaa wadada Djibouti bariga hore bay jirtay wadada samarta sax sayidku fahmay halkaas la idinkeeyay halkaas la idinkeeyay way marka anigu markaaba waan murugsanahay nin waxa tahay ka badbaaday warma waxa tahay meel kasta oo xun oo dhibitaalo waxa loo oran jiray aydiido cid la bax halka harugu mar oo adigu hayso ciidanka arbush haday tahay oo la arbushayo waxa loo oran jiray koox la bax koox soo arbush meel hebla haday saahan tahay saahana cid marayna lama diri jirin beelii sheegay waa gartay habeenada kamid ah anakoo weerara yaa waxa laga cabsaday ciidanku inuu galo ciidan hawaaro inuu u galo oo uu dhex fariisto u dhinto lagu laayay markii la filay inaan ku sii dhownahay meeshii ciidanka waa la joojiyay saf balaaran buu yahay waa weerar waa la joojiyay ana lay wacay adu markii hore lama socono maya waa ku jira safkan ku jira adaal soo haru soo baxbaa la horaan soo baxay nin kale waa la wacayo reer bariya hor socdo baa la ciidanka kooray anagu waxaanu nahay fidaaya miinada xitaa maya waxa la diidayaa culweynahan inuu jabo yaa la diidayaa ee kuwa kan wixii dabadna laga war helo waxay la kulmaan lagu war helo yoolbaad baan sidii anakoo u dhowkeynay markay aanu istaagno meeshu waxa yaala waa haraw baashan la yiraahdo kumbulsho bahara saafa ilaa xad ka baxay si xun u baxay bahar saafa caleentiisu dhulkay taal xajab asqarisa markaanu anaku istaagno kuwa naga dambeeyana way istaagayaan ilaa sanqadini baa wala maqlay taaya iyagu anaka u hormooda waayahay markaanu soconana waa dhaqaaqayaan markaanu istaagana waa istaagayaan kuwa la hor dhigay ciidanka Allah xaq lagu caabudaan ku dhaartayaan kooka hor socda marka anaga waxa lagu falmaaye laashana naga maayse waa ciidanka kale waa ku war helo ha badbaado horta sidaas ka dabadna tash waxa u dhacay warma meeshii meel walba lagu lahaa aydi masjidna baa ku dambeysay jooga maqaanan baan anigu waan joogaa laakiin arintaas aad u qaadan waxaan ahay maqaana joogaan waayahay inta aad ka garanayso ragga la laayay dhowr iyo 80ka ayaad si fiican u garanayso ee kamid ahaa liiska ee raggii faranta hore kugula jiray mar walba ama aad israaci jirteen goobaha khatarta ama la idin ku miina baari jiray imisa kaga jiraad ka garanaysaa aad ku xusuusataa ilaa imisa horta dadka qaar baa waxay yiraahdaan dadka waa la mid waa la soo waxba la soo socay oo la dhex gala bay u badnaayeen macnaha sida dadka qaar baa aan been bay ahayd waa la isfahmi lahaa haddii in yar la helo oo wax kala socosoo deegaan gaar ay ka soo jeedaan oo waa la isfahmi lahaa waa la isfahmi lahaa ma dhicin isku dhaf bay haayeen war cidku waxa weeye ka magacaas baa loo bixiyay kaliya
ها رجي جيسياش geesiyaasha وحكة may wadaagin هايب كلام ما لحين عبد السينة كلام ما لحين ساسي هاي isku qoys iyo isku reerto والله كتاي ما هاي adu markaa saaxiibadaadii ku jiray ونمن قري هدي بيدن كذا لي هاي أو صدح هذا اسكو ولي عيلتها هي بري بها هاي way شرتين بها هاي سو ما كان way نمكي صدح دي قولا مد لقى ريبي صدح دي saddexdu way ku jireen صدح دي بقى لو ضلع saddexdaa si fiican baad u garanaysaa سيف عمل oo rag waxay ahayn ragga mar walba اي هاي ay geesiyaasha اي شاشه اي kuwii kale ee deegaan kastaba ha ka soo jeedeen qaar kale oo amaad huruntiina u badnaa miyay u badnaayeen mise ما وح ولا غيبيوغو waa run ولا غيبي ما لو بور مايو سو ما فاهم ciidanku dhan baa loo ciidankoo dhan baa lagu sayray waa kale yidhi in hurin waliba tiradaa tirada keena unugtiina intaas siyaasay taayaduna siyaaday lahayo hurin aad iyo aad u magac leh baan ayay ahayd hurin aad u magac leh sababta safka ugu horeeya liiska kaga daray maxaa maxaa dhacay markaa ciidiida markii aad timaadeen in gabiley ee gawaariday timi adigu ay maskaxdaadu weli ka buuxayso su'aalihii aad isweydiinaysay maxaa dhacay markaa waxa la yiri waxa go'aansaday horta marka hore waxa dhacay waxa la yiri sidaa wuxuu dhaceen waa si laga xun yahay yaa oranaya markaa waxa oranayay horjoogayaasha nimanka madaxda sare halkaas ayaa ugu horeysay madaxda shaqada oo deebe waxa soo khalad buu dhaceen waxa laga cid kale shaqo kale cid gaar ah baa wadatay waxan waa laga daba tagayaa waxaasuna dee dawla u dhisan baa lagu qudbaday ayaa lagu qudbaday markaa anaku waxaanu tagnay gaas koobaad baan ka tirsanaa waxaanu tagnay meesha la habaas ayaan ka tirsanaa Itoobiyada waa isku dhowdahay bay meesha habaasta iyo Itoobiyada waxa isku dhow degsimadeeda ciidan ahaaneed iyo habaas isku dhowdahay marka anigu taasaan ka mid ahaa dabadeedna fasaxa aniga leeyma diidi jireen halka aan dalbo Jabuuti waxa xitaa leeygu fasaxay halka adoo halka jooga yani waxa rabaa fasax Jabuuti ma Jabuuti dee isku dawlana mihin waliba markaa isku mayn wanaagsaneyn baa markii la qoondeeyay aan ku fasaxaasaan rabaa waxa la eegay aniga boorga waxa la raacay aniga ninka waxa la eegay la raacaya waa muxuu yahay muxuu si ahaan jiray in la eego dasiifiisa dabeedna waxay noqotay warqad dhakhtar baan ku fasaxaynaa ninkan wax kale uma banaana warqad dhakhtar oo aan time lahayn iyagu koonu time ku dhigi maayaan ninkaas fasax ma ahay waxa weeyaan waa dhakhtar caafimaad aniga mooyaane qof Jabuuti loo fasaxayna wallahi ma jiro Jabuuti baad Jabuuti baan tagay 40 iyo something baan iska joogay ilaa waxaan ii qoray ayaan ku qaatay reer baan ugu tagay dee aanu meesha family warqadeedina waa sitaatay ciidan xaaladu waa sidaa waa dhakhtar dee laakiin dhakhtar bay wadataa warqada dhakhtar weeye marka anigu sidaas aan horta tixgelina meesha ugu lahaa ka soo waadadeeda dambe markaanu taa tagnay waxbaa la qoray wax ladgeesi baa la qorayaa ragga loo qorayaa adigoo Jabuuti jooga maya anigoo jooga bahashan lagu yiraahdo habaas marka soo noqotay marka maya ka horba intaan tagin ladgeesi baa la idin ayaa la bixinayaa ururkan ka tirsanahay yaan horun koobaad ka ahay saddex nin bay ayay heshabaan ayay heshay saamigii ladgeesi la qoondeeyay waayahay lagoobadiyo waxa la yiri laba ururku leeyahay loo qaybinayaa mid dushay ku qabteen labada ururku la siinayo yaa ciidankii ways wareejiyay ayaanu yimiba waxay laga qaadi waayay ninka cid uga xukroona ururka cid uga waroon ama uga xogroon waa ma jirto ururku marka hore wuxuu ahaa
saddex xurmoodoo min sagaashana من سجاشنا ها واي ururku marka hore اه intaas waa infantry واي hurina waa kaartaa la yidhaahdaado waa sancada iyo hubka iyo waxaa weeye laakiin infantrygu waa saddex وصدح لا هرمون بريمو iyo segundo iyo terzo saddexdaa weeye hormood ururku ayuu ka kooban yahay xagga infantryga marka laga hadlo kaarta markaad halkaa ku reebto saddexdaas waa infantryga كارتدو وتكنيكدي waa technicada haa waa kuwa waa garab socda bahashi anigay hoos timi واي hal aydiidu labadaan soo qor labadan nin ka soo qor saddex nin bay ahaayeen nin annaka dusha ku hayna واي laakiin adigu labadaas halkaas ari lawadu wadiyo aydiid dhaafi weeydi واي aydiid macruufad way madaxdan qaar baa dhintay qaar baa yiri waa liita shub bay u dhacay oo baxsaday ninba mar واي aniga qoray واي labadii aniga soo qoray واي markaan labadaasaan keenay yaa leeyahay ka saddexaadna waa adiga oo annaka dusha ka haynay واي baashi iyadoo aanin soo gaarin horta heerkaas ka gaarsan wax nin loo qorana taasa ugu qiimo badan waa lagu qoray adiga marka waa lay qoray waa lagu siiyay haayo aniga dusha ka qabteen marka hore waa isweydiiyeen waxay taa haya isaga labada kale labadii kale soo xul oo raggaan garanay waliba si kalena waa loo dhigo waxa leeyahay ninku hubsiino iyo miisaanadii cadaalad midna nin ku liitama ma habal markay tashadeen inuu isu geeyay laakiin waan uga macruufad loonahay karaga kan aadee xogaal baa waan uga xogaarsan iyagu dee magaranaysa dusha un bay dee saraakiishi weeye adigu laakiin waxaa tahay nin faranta mar walba ku dhex jiray oo unugta uga xogaarsan kasoo waadadii dambe markii aan anigu go'aan ka qaadan doono taasuna waa dhacday go'aan ka qaadatay markaa muxuu yahay wuxuu ahaa halkan kuma nagi anigu kuma saldeganin waxaan sii eegayaa qorshihii aan ka soo maray meesha iyo sida wanjalku iigu dhacay ee ilaahay ii dhaafiyey taasaanan kaba badbaadin anigu igaba bixin liiskii baad weli xusuusan tahay liiskii lambar afar laga dhigay ilaahay ka badbaadiyey tii baa maskaxdayga ku jirta waxay noqotay cashadii dambe la yidhi ururada rag dabrida oo ku fiican urur baa laga soo xulo waxa dalbay baa loo oranayaa siyaad bari oo xoojin weeye habaastii baanu joognaa anigu haddii dabriya waxaa la sheegay ninka koobaad baan marka hore caydii u yaadhanaya aniga nin kalaa ka galay 2 bilood yaanu dabridu wadnay ilaa 7 ilaa hadii waa ka markay noo xirantay baasoolad bay noogu xirantay dhaman baa la yiraahdaa ruushku lahaa taasay noogu xirantay ayantaan fidnay ay noogu xirantay sidii markaasaa la yidhi shaqo ma tegi kartaan meelo uma bixi kartaan waxay filayaan amar ah soo fuula gawaadhida oo hargeysa ah ayay filayaan dee madaxdan dub dambaa war dambe dhacdo odaygiiba waxaa laga sheegay isaaq kowdhi ma jeerteen wixii ku jira hay keenina dadka wixii kale soo dalaca odaygii baa laga soo wariyey aniga inin ma jeerteena oo cabdi guure la oran jiray wallaahi inaan agtayada iyo meel kale oo ka dibsadayna ku soo dhawaan labadeedu baa wanka gala iyo tuuga isu gala ninba ayaanba wanka gala labadeedba waa laga qabtay labadeedba laga reebay kriteeriyada baad ku hadheen kriteeriyada baan ku hadhay warkii odayga laga keenay ma jeerteen iyo isaaq waxaanaanu aragnay indhaanala ku eegaya inay tii ka duwan yihiin oo sidii hore aan xaalad waxayna wax iska bedeleen dabadeedna fasax baan soo qaatay dabadeedna dib uguma noqon sidii baad ciidanka kaga timi waxaan berberaan tegey berberaa kuwa fasaxii igu sheegeen ninkiina haystay oo ogaadeena yaa isagoo dhar cada soo fasax qaatay ninku shiishka soo saarana waa ahrika ninkaa waxaa lagu sheegaya berberu jooga cabdimadoobe aa la odhan jiray magaane dabadeedna meel afarirdooda ayuu soo fadhiistay isagoo sii jeeda ayaan ka ili horreeyey anigu
ilaahay waa cabdimadoobe sii jeedkiisii baan sawiray waa sii jeedaadoo highwaygan buu eegaya anna xagga dambaan kaga yimi markaasaan u gooyey noqday haa berberaan joogaa markaa ninkaasu ciidankunbuu igu celin lahay nin dhib kale ay sababtu tahay waa nin aanu bismi illaahi raxmaan raxiim ayuu ahaa kaasuna waa iga seeroobay kuwa iga kasii dambeeye waxay odhan jireen lacagtaadii weli alaankaa way socotaa iyo xaadirkaagii marka lacagta la qaadanayo way socotaa imisadii way markaa ahayd ma xusuusan tahay oo dee waxay ahayd markaas waxay ahayd 8 gebagabow ayuu yahay ayay noqonaysaa markaasaan anigu yidhi maalin wacan markaas halkaasaan isku macasalaaminay ciidankiisu isku macasalaaminay markaa kadib markaa xaggaa tagtay waxaan tegey miyi baan uga baxay magaalo iskaga baxay miyi baan u baxay dee xoololey baan ahaa xoolahaygii baan kala minowra ka shaqeeyey colaadiina waxay saqari jirtayba waana soo gashayba dheerkii mid baa qarisa mahayne laamigan baanu joognay kumaad qayb qaadan oo halgankii adigoo dee waxaa soo arkay dhibaatada ku dhacday dowladdii taliska ahayd siyaad bare sidii loo galay raggii dhan abaalguday markan dambe soo markaa kamaad qayb qaadan halgankii haddii soomaalidu awow waxa la nin isfaasho waa riis nuugtay anigu haddaan ku idhaahdo sidaasaan wax odhan jiri waxba qiimeeyey ma laha laakiin wuxuu saaxiibada iyo raggii aan la socon jiray weydii su-aalo adiguba su-aalo weydii sidaan ahay ninkaan ahaa iyo meesha waxaan ahaa ayaa qorigiisu seero male bay odhan jireen dhigaa ridaya seero cidla marta uma ogola ninkaas waa ka ilaaliya seerada waa ka ilaaliya markii dambe waxaanu dhaceen qasku dhacay ayaa habar noqotay waxa lagu yidhi ciidan ha lagu dhiibo nin aanu ilmaadeer ahayno berrowood dhintay oo nimanka la tashan jiray yaale odaygaa inoo soo qabo waa ii yimi waa markii qalaasu dhacay habartiiyo wixii laba legdee waa kala odhan jiray suufaloo lagu dambeeyey wuxuu sidaasaa lagu leeyahy waxa urur ha lagu dhiibay tee ururkaa madax qabo waxaan ku qaban maayo anigu markii aan ciidanka ku jiray waa lay amri jiray waagii curgududan waxaa la odhan jiray shaqada berito lagu shaqaynaya waa caynka ah sumadaasay leedahay aniguna cid baan amri jiro iman jiro waxaan odhan jiray shaqada beri la qabanaya sidaa weeye hadal iyo murantoona kama dhacayn iminka odayga waa xagee ka yimi baa lay odhanayaado dee anigu haa markaa niyo waxa anigu iminka ma dhex gelayo laygata waayahay ciidii jaamacirsa markan dambe horta adiga dee wax badan baad ka sheekaysa nin door weyn ka soo qaatay dagaalkii Ethiopia oo maskaxdiisa ay wax badan ka guuxayaan markan dambe SNM-ta iyo dagaalkii EDR-kii waxaad sheegtay inaad dee ma garanaysa aad rool ku lahayd marka aagagii aad joogtay waxay ahaayeen dagaalkii markuu dabadda ka soo riixmay hawdka iyo ka yimi laamigan buu soo fadhiistay haddee laamigan madow ee burca ka baxa ee xamar ka yimaada dagaalkii wuxuu markii dambe fadhiistay rug ku yeeshay halkaa gaatama ma maqashay aagaa gaatama iyo qoryaalaheed iyo fadhiyadeeda iyo intaa magaalo yarteeda aaggaa raggaa ku jiray ayaanu ahay ma garata weliba anigu dee wax badan baa ii baxsanaa oo nimanka la yidhaahdo dee gaas dhagoolku dee ficil baa wada laakiin system badan baa ka maqan soo maad garan dee taana waxa weeye dee waa meesha waa maraysaa oo ma hadhin iyana ma hadhin waagii kasta oo kuu beriyaa weji buu ku tusayaa marka ciidanka meelaha haystay mise rag kale maya nin la odhan jiray nin dhintadoo nin caqiiba ahaayo ayaanta meeshaba ay jabsadeen isu socdeen inta ka horeysa wixii burca ka tageen dib baa loo soo celin jiray
wixii xaggaa ka yimaada xamar iyo xajiidana jubbaa loo iri jiray markuu ninkaas joogay ninkaasu ayaantii u geeriyooday ayay ayaa wadadan la maray kuma aha ninkaas waxaa loo yidhi Sahal Cumar naanays ma laha Sahal Cumar jiriid baa loolan jireedoo jiriid Sahal Cumar jiriid baa loolan jiray mujaahidiintii buu ahaa bismillaahi xabad dhabarka halkaa kaga dhacdo feedhaa la baxday marka dagaalka lagu dilay dagaalka lagu dilay iyadoo laga geli jiray jidgooyada gaatama meel kale ma gaatama iyo qorya iyo buuhoodle kaashe maaha buuhoodle dhow baa jira oo aagana oo gaatama iyo isla haysata kaasaa eriyadaas lagu dilay halkaasaa lagu dilay duulamaadka ay faqas soo qaaday waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo markii aad joogteen eriyadan ka shaysa boorame xadka waxaa la yidhahdaa habaas aad deganaydeen weli maskaxdaada ay kasii guuxaysay arrintii ka dhacday garab cas haddana laydin yidhi waxaa la bixinayaa sidan abaalgud baa la siinayaa saraakiil raggii dee dagaalyahanka oo biladgeesiyaa laydin siinaya sheekadaasu sideed u rumaysatay ama siday kuu saamaysay waxay ii saamaysay markii dambe waxay ii saamaysay horta haddaad ciidan aragto waa halgalgalatay maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa halgalgalatay marka hore galgalashadu waa u maydhashada geela meel gelgelinahoo boodh badan yuu isku tuuraa marka hore dhan buu isu tuuraa marka dambena dhanka kale yuu isu tuuraa labada dhanba markaa ciidan haddaad aragto waa halgalgalatay oo marba sibuu yahay marka anigoo tii igama bixin tii horta igama bixin waxay isuga qaban weyday meeshuu walba caydiidow horugu mar wuxuu igu yidhi ninkaa cabdimadoobe ii qaybsami maysa habeenuu noo dirayay arbushaad uu yidhi ii qaybsami maysa haddaan isleeyahay ciidan kula joogo waxaan soo leeyahay caydid madaxa u ahaado haddaan isaga sahan diri waxaan leeyahay caydid meeshaanu marini sahan hagaagsan maaha caawase waxay ku gorortay nimankii duulimaad bay soo wadaan in la arbushaa la doonaya caawa nimankan in isku dhowna anwal la fadhiyaa koox la bax ii qaybsami maysid ilaahoda iga markhaati waa waysaqa waxaahe war ii qaybsami maysid soddonkaa kaxay qori gaabana qaada shaqo kuma lihidin 3 bardalool unug waliba mid bardalool ah iyo 7 iyo qoryaha kale oo iyana qoryo dhaadheer ah ayay qaadanayaan boobayaala dee nimankaa wax ka tara caawa si ay weerarkaa berito ay soo wadaan uu baaqdo waxay iska maray ilaahay unbaa tayda uun waktigeeda aan ka gelin haddaba tii ahayd waana la hormariyey yaa rasaastii baroomada ilaa hadda hawshii isku noqnoqotay yaa baroomadii rideen rasaastii qoladeedina waa rideen kuwaasuna waa rideen annagu labada dhexdoodana ku jira ogow waa habeenka aan indhaha ka qaaday rasaastii meelay iska dhaafto marka weyday iyada isku daadanaysa sidee dhuxulood hawada qiyaamaha ilaahay aanu iisoo taaga waxay fara ka qabto saasta dhacaysa iyadoo hawada iskaga dhacaysa iyadii laftigeedii iyadiiba saas ugu dhacday oo dhimbiila noqotay waxay fara ka qabto wuxuu kumbilshu ahaa markaa xadartay nimanku isoo mariye ee maalin baa laxaayeen halkan horugu mar iyo halkay ku dambaysay iyo halkay ii soo dhigeen iyuunbaa niyahu fogaanshay qaadsiisay fogaansho marka darajadan iyo waxa kan waxaan lahaa bal horta yar eego wuxuu malaa wax saxmayaba maaha malaay sidii bayna noqotay waa taa la yidhi majeerteen iyo naga reeba labadaa reer waa eedeysan naga reeba xaggan tabalshahan kale dagaalkan SLMtana dee raggu gaasdhagoolku wuxuu ku jiray meeshan lagu raahdo wuxuu ku jiray laamiguu galayoo labada dhanba uu ka joogay laamiguu galo xoog ku yeeshay ninka maalinta la dilay ninkaa ayay awal
waxaana xaggaasay loo celin jiray waxaana xaggay usoo noqon jireen isuma gudbi jirin intii hore ayaantaasay ay mareen laakiin markii dambe laga qabay ilaa maalin haddii dee ay u gasho maalin laba daba way suran yihiin laakiin maalintaasay maalin isu maraan maalintaasa jirtay maalintii u dhintay maalin isu maraan oo meesha baneeyaan isagiina waxaanu ku aasnay bahasha le higlo isagoo khaykhalo adee dhiigga saawsa idhinaya yaanu ka qaadnay markaa higla lagu aasay dhaqada ma jirin ama dhiiggii baa markiiba sii daayay dhiigbax buu dhintay عيدي جامع حسن وينو ما شاء الله الحمد لله رب العالمين عبادكم موقتو عمرك إلهي وبركي وايا أرقني مبضن يوح بدن حنبارسن تاريخ بدن هيا وايا بدن سويتشو قبات ملتيري سومري وحاسو شبابات كشركيس ما أنت مركز يرتو وايا هلقو تشرو يهلك عينو تشوغني محاد ku talo soo jeedina ee aad kula talin lahayd ama dalkan ama dadkan ama ma garanaysaa dadka mas'uuliyiinta cid kasta ha ahaadeen dadka wax uga weydiisay oo ku soo gaabinaya waxa la hadal nin badiyena ma dhamayn oo wuxuu baabaa ka nin yareystayna kama kala tagin oo afar kelmadood hadduu ninku ka soo dhigo oo wax ku oola hadalkii yiri Soomaa waxaan muuqaalka ila leedahay baan ku sheegaya talo dee aniga talo ula muuqato ila muuqato waxay ila muuqataa waxaynu soo maray wax lagu qaataa bay wax la ilaabi karo ama fudeyd loo dhaafo waxii ina soo maray maahay Soomaa waxaan ku talin lahaa aniga ii muuqata raayi ahaan aniga maskaxdayda tusaysa ninka madaxda meel kastaba ha joogo anigu waa Soomaaliland Somaliland ayaan ugu soo baray waxaan waxyeello ku ahayn baan ayaan kula talin lahaa asaan isleeyahay waxbay taraysaa isaga idina weydiinayay idinkuna weydiinayay waxaan ku talin lahaa ninka madaxweynaha kaasoo waxa weeye madax meel ka sareeya lama tartaali madaxweynuhu ugu sareeya madaxweynuhu baa hawsha marka hore kow ka ah waxaan isleeyahay waxbay u tari lahayd ayaa ii muuqata aniga waxaasoo ah ninka teemkiisu markuu gebageba yahay dhamaado waa la doortay teemkiisi waa gebagaboobay waxaan ii muuqato aniga ay muuqaalka ila leedahay ninkaasu inuu markaa ay tiisu gebagaboodo inuu borogaraamkii iyo haddii beedankeeda dhiso dee sidii doorashadii qabanqaabadeeda u dhici lahayd qabto inuu iska reebo isagu aanu kuba darmin waa ku soo wadaa waxaan uga jeedo waxaan isleeyahay see wuxuu tari lahayd baan halkaa idinku tusayaa anigu waktigayga waa dhammaaday waktigaygii waa dhammaaday waa gebigebi waa kaa dhammaaday doorashaduna waa la qabanayaa waxaan leedahay anigu waa ka harsanay waa ka hadhay oo anigu doorasho kuma jiro weya almacni hadalka tiniya waxaanaan isleeyahay ninku kastaa ku dhawaaqa in la odhan lahaa war inoo qabta isaga haynaga sii daynina aan ku noqono isaga ku celiya ninku hadduu halkaa iska taago hawsha gebigiisa halkaa iska taago waxaan isleeyahay waxaan waa degi lahaa hadalkuna meeshu ku jiray nuxulkiisu waa kaa isagana waa lagu noqon lahaa oo waxa la odhan lahaa waxba u tari lahay inoo daaya kan inoo daaya marka haddii halkaa laga galo bahasha halkaa haddii laga galo waxaan isleedahay khilaafka kan iyo waxa kan iyo waxa kan wax barasharkan waa degi lahaa isagana waa macquul in la yidhaahdo taana waxaa markhaati u ah
inaciga laga qabta buu way iga qabsada iyadoo laga soo wada horjeedo iyadoo laga soo horjeedo oo 12 naani wax loo sheegayo oo lagu kacsi la guuxayo ma guux ilaa xad buuxa ilaa dhulka joogay way iga qabta markuu yiri baleedo yaa lay war inoo daayay ninka inaga iga qabta gaaray inoo daayay halkaana waxa ka shiish qaadanaya war malaha sida hadii loo kaxayo ayay ku qurban kana waxa loo war inoo daayay ha kan loo wadadeeda maro oo yiraahdo aniga wayga sidan dalkana nabadgeliyo kaga shaqeeya iyo midnimo aniguna waa iga gacan aan leeyahay iga qabta war inoo daayay malahay ma horteen malaha aad iyo aad baad u mahadsantahay ID Jaamac Xirsi oo aan waraysiga sidaad nooga aqoonshay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay oo kaaga mahad celinayno thank you